boqolaal xabo oo ka mid ah xayawaanka loo yaqaan hombabarada ayaa waxa ay maanta ku soo caariyeen xeebaha gobolka bari ee deegaanada Puntland. Arrintan ayaa dad badan la yaab ku noqotay, waxayna isweydiinayaan waxa sababay dhimashada hombabarada. Meydka hombabarada oo weli aan wax baaritaan ah lagu samaynin ayaan la xaqiijin karin waxa ay u dhimatay, balse dadka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in laga yaabo in waxyeello ay ka soo gaadhay sunta iyo qashinka lagu shubayo badaha Soomaaliya, maadaama xeebaha Soomaaliya cid ilaalisa aysan jirin. Maamulka Puntland wali arrintan kama aysan hadlin, wax warana kama aysan soo saarin. Qodobkan wixii ka soo kordha kala soco Rasmi Radio. Haddii aad ku cusub tahay baraha iyaga bulshada oo horey aadan noogu xirnayna, nagu soo biir oo channelka subscribe noo saar, muuqaalkana noo like garee si uu dad badan u gaaro. Iyadoo wali halkiisii uu yahay khilaafkii siyaasadeed ee u dhexeeyay Puntland iyo dowladda dhexe, ayaa waxaa haatan Puntland ay eedeyn culus ay u jeedisay dowladda dhexe uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Hadal uu maanta jeediyay madaxweyne ku-xigeenka Puntland Ilyas Cismaan Lugatur ayaa waxa uu ku weeraray dowladda federaalka ee Soomaaliya, isagoo ku eedeeyay in caqabad ay ku tahay daryeelidda dhaawacyadii ciidamada Puntland ee dagaalka kula jira kooxda Daesh. Ilyas Lugatur ayaa intaasi ku daray in dowladda dhexe aysan weli wax taageero ah aysan Puntland ka siinin dagaalka ay kula jiraan kooxaha argagixisada ee Daesh ay ugu horeyso. Wuxuuna sheegay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay ku fashilantay kaalintii dagaalka ka dhanka argagixisada sida Daesh iyo ururada kale. Sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay in maamul ahaan iyagu ay isku tashan doonaan, isla markaana wax taageero aysan weydiisan doonin xukuumadda Soomaaliya. Wararka ayaa waxa intaasi ay ku darayaan in askartii ku dhaawacantay dagaalka kooxda Daesh loo qaaday dhanka iyo dalka Itoobiya, kadib markii dowladda dalkaasi Itoobiya ay ka caawisay Puntland in ciidamada ku dhaawacmay dagaalkaasi ee qaba dhaawacyada culus la geeyo cusbitaalada gudaha dalkaasi Itoobiya si ay u helaan daryeel caafimaad. Dagaalka Puntland iyo u dhexeeya ururka Daesh ayaa sii xoogeysanaya, waxaana maanta ugu dambeysay ay ciidamadu kooxda Daesh ay kala wareegeen saldhigyo iyo xarumo hor leh. Khubaro kala duwan ayaa ka digaya taageerayaasha kooxaha isku haya dalkaasi Itoobiya inay ka faa'iideysanayaan tiknoolajiyadda casriga ah iyo aqoon darrada dhinaca warbaahinta ee haysata dadka Itoobiyaanka ah si ay u faafiyaan warar been abuur ah oo kicinaya bulshada, kuwaasi oo xanaf leh una dhexeeya qowmiyadaha iska soo horjeeda ee gudaha dalkaasi Itoobiya. Arrintan ayaa waxa ay khatar gelinaysaa inay qarxaan rabshado waaweyn oo hor leh oo u dhexeeya qowmiyadaha isku haya siyaasadda gudaha ee dalkaasi Itoobiya. Itoobiya ayaa ah dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika, waxaana ku nool 120 milyan oo qof. Waxaa ka jira kala qaybsanaan xooggan oo dhinaca siyaasadda ah oo qoto dheer oo ay isku diidan yihiin qowmiyadaha tirada badan ee kala duwan ee ku wada nool gudaha dalkaasi Itoobiya, kuwaasi oo sababay colaado gudaha oo soconayay 10 sano. Xaaladahaasi ayaa si fudud u sahlaya faafinta wararka been abuurka ah ee 36 milyan ee qof ee isticmaala baraha bulshada ee dalka Itoobiya. Qaybta hubinta wararka been abuurka ee wakaaladda wararka ee AFP ayaa beenisay muuqaalo badan oo la farsameeyay bilihii ugu dambeeyay. Muuqaaladaasi waxaa ka mid ahaa khudbad si qaldan loo farsameeyay oo uu jeediyay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo ahayd war been abuur ah oo sheegaya in hogaamiye jabhadeed uu dhintay. Khabiir dhinaca warbaahinta oo ka tirsan mid ka mid ah jaamacadaha dalkaasi Itoobiya kana faallooda arrimaha saxaafadda iyo warbaahinta ayaa sheegay in aqoon la'aanta dhinaca warbaahinta ee haysata bulshada Itoobiyaanka ah ay sii horinayso colaadihii horey u jiray, ayna abuurayso caqabado cusub oo xagga bulshada iyo dhinaca siyaasadda. Daawadayaal, warkii koobnaa ee kala socoteen Rasmi Radio intaas ayuu ku egyahay habeennimadan caawa ah. Inta aan ku kulmayno warkan lamid ah waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.